nusuusta qur-aanka iyo xadiidka ku soo aroortayna waynu naqaanaa laakiin marka loo dhaadhaco awoodda qofka qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha shareecada waxa mar kasta inugu waajibaynta aynu aweyno intaasaana islaamkiina saaraayo in la fuliyaa saa daraaddeed ayaa haddii qof maalan aanu istaagi karin maxaynu leenahay ninkii yidhi isma taagi kara nebigu muxuu ku yidhi salli qaacidan adoo fadhiya tukaan la yidhi soo ma ahayn ka warran haddaan akhriyo nusuustii sheegaysay salaadu istaagu inuu rukun ka mid yahay arkaanta salaada ka mida salaad la'aantuna rukunkaasi inaanay asaxin nusuusta haddaynu isku akhrino ka warran waa sax nusuustu waana ka mid mana asaxda la'aanteed laakiin kani wuu awoodi waayo way ka dhacday bulshadu waxay awoodi weydo way ka dhacaysaa shareecadu bulshadu waxay awoodi weyde kasta way ka dhacaysaa idan waxa ay ku xidhantay in la garan karo daaqada bini aadamka ku hortaagan inta uu yahay awoodiisu intuu yahay inta uu qaadi karo inta uu xamili karo sidaa awgeed nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayaa gabadhi u timi iyadoo ashtakoonayso ninkeeda ka ashtakoonaysa dhowr mas'alay sheegtay waxay sheegtay inuu dilo waxay kaloo sheegtay inaan u ogolayn inay soonto oo soonkana ka jabiyo waxay kaloo sheegtay salaada subaxna inaanu si fiican u kicin saxaabiga caynkaa la sheegayaana jalsadii nebigu fadhiya waa safwaan ibn almucatal meeshuu fadhiya xadiiska abi daawud buu ku yaalla waa xadiis saxiixa war safwan bal warran baa la yidhi wuxuu yidhi kow ilaahay rasuulkiisiiyow laba suuradood oo qur-aanku aan aqaano unbay mar kasta igaga tukataa anna waxaan ku idhi labadanna anigaa ku tukanaya adigu qur-aan badan baad taqaanaayo qur-aanka kale ku tuko wuxuu nabigu ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh suurad qura hadday tahay dadkoo dhan waa ku filantay yacni ha ku maagin taasi wax la isku qabsada maaha iyana ha ku tukata adna ku tuko mashaakil ma jiro wuxuu yidhi nebigii ilaahay rasuulkiisiiyow soontan ay leedahay wuu ii diiday inaan nin dhallinyaro iminka guursaday baan ahay dabeetana sunayaal umay dabada isugu qabatay gabadha tani dabeetana wuxuu nebigu yidhi gabadhina ma soomi karto soon sunno ah baa laga warramaya ninkeedoo ogolaada mooyaane yacni nolol reer baa ka dhaxaysoo kale tanina inay ateecdo qadiyadda ku ateecdana waa waajibaadka reerkaba loo samaystay tanna waa soon sunno ah soonta sunnii mid la isla waafaqay waa inay noqotaa saa daraaddeed buu nebigu yidhi gabadhina ma soomi karto bikayri idni zawjiha masalada kale buu yidhi ilaahay rasuulkiisa way kuu sheegayso anigu reer baan ka dhashay reerkayga waxaa lagu yaqaanaa inaan cidiba kicin cadceedda kululaata mooyaane yacni xanuun bay qabaan xanuun hurdaa bay qabaan xanuunka hurdada uu dadka uu ku dhaco dadka badh baa ka mida iyagoo waddada maraya gam ah isagoo sidiisa uu soconaya gam ah dadka badh baa ka mida hadduu kaco aan laba kicin karin hadduu isagoo hurdo intaad qaaddo aad waddada dhigto iskaga tagto sidii uu hurdaya oo u quurinayaan waxba kale ogeyn ninkani wuxuu sheeganayaa markaasi in xanuun heritage reerkoodu oo dhammi leeyahay inuu qabo inaanu salaad uu sagsaagayay aanay ahayn wuxuu nebigu ku yidhi markaa toosta tuko yacni markaa toosta indhaa kala qaado dhallinyaradu iyo moodan xadiidkan inuu daliilu yahay salaada subax oo laga tagaa khatar weeyaan laakiin waxaynu tilmaamaynaa awoodda qofka bini aadamka iyo istitaacadiisu inay leedahay daymo badan in la daymoodo oo nusuusta marka la tabaqayo ama jamaaca ha noqdo ama bulsho ha noqoto ama ummad ha noqoto ama qof qura ha noqdee fiqul istitaaca in la eego awoodda dadku iyo inta ay gaadhayso sidaa awgeed ayaa waxaa muhima in siyaasa sharciya markaynu ka warramayno in loo eego xaaladda ummaddu halka ay marayso iyo waxa ay qaadi karto kaasi waa mid waxaan leenahay siyaasa sharciya markaa macnaheeda markaynu soo duuduubno waxay noqonaysaa in wixii wanaaga la kobciyo la dhammaystiro wixii xumanaana la yareeyo
nusuusta sharciga iyadoo la raacayo haddii qadaayaadkan sidaa shareecadu isugu miisaantay si aan ahayn la damco in la isugu miisaamo dhib badan baa ka dhacaysa walidaalik naska qur-aanka ama xadiidka iyo tabaqaadiisu horta waa laazim in la tabaqo shareecadu ma aha yani wax laga tagtaga maaha mana jiro nidaam kale oo dadka badh bay maskaxdooda waxa ka guuxaysaa in mujtamaca inta nidaam yaroo kale lagu dhaqo loo soo bisleeyo shareeco ma jiro kaasi nidaam dad shareeco u bisleeya ma jiro dunida nidaam waliba isagaa isbisleeya sida daraaddeed shareecada dadka inta hadba ay fulin karaan bay fulinayaan ilaa iyo kamaalkeeda laga gaadhayo uma baahna in nidaam kale oo mustawrad oo dhexo oo iyada intuu kobciyo meel gaadhsiinaya ama caqli kale lagu taageero uma baahna laakiin shareecada ayaa nidaamkeeda siyaasiga ah wuxuu leeyahay in loo dhaqo qaabkii loo fulin lahaa intii markaasi dadka waajib ku noqon lahayd kaasi waa cumuuman yani ra'yi guud oo aan rabay in laga fahmo asiyaasa sharciya majaalaadkeeda lagu tabaqo majaalaadka ama siyaasa sharciya ay ka waranto waa nidaam ilxukmi baa ka mid ah iyo qaabku noqonayo nidaamka dowladnimo ama waxaana u yaqaaneen alqaanuun addastuuri waalqaanuun alidaariy waa inuu siyaasadda ku salaysnaado yani sharciga kan waxaynu u daba dhignay inuu shaygu yahay shay laga rabo inuu shareecada waafaqsanaado waxaa ka mid ah shu'uun ilmaaliya fi dawla waxa lagu tilmaama ama nidaam ilmaali ama alqaanuun ilmaali waxa laaliya wixii ku saabsiisan budgetinka iyo dowladda dhaqaalaheeda iyo qaabka ay u expense garaynayso iyo qaabka loo isticmaalayo waxaa ka mid ah siyaasadda sharciga ah shu'uun ilmaaliya alcaama ama alqaanuun altijaari qaanuunka dhaqaale guud ee bulshadu ay leedahay baac mushtar oo dhan isaguna waa inuu hoos yimaado shareecada islaamiga waxaa ka mid ah ashuun alqadaa'iya waxa laaliya wixii ku saabsisanaa qaabka maxkamadaha iyo ijraa'aadkeeda iyo muraafacaadkeeda iyo booliisankeeda iyo basaasisteeda iyo dambi baadhisteeda iyo waxaas ku saabsan shareecadu iyo nidaam bay ka leedahay waxaa ka mid ah ashuun aljazaa'iya waaljinaa'iya wixii ku saabsiisan atashriic aljinaa'i walqaanuun aljinaa'i qaanuunkan criminalka loo yaqaano iyo wixii ku saabsiisan waxaa ka mid ah majaalaadka siyaasa sharciya ee ka waranto alcalaaqaat adduwaliya aw alqaanuun alkhaariji ama siyaasaat alkhaarijiya xidhiidhada bini aadamka u dhexeeya dowladaha bulshooyinka dagaalada nabadda safiirada iyo wixii la halmaala siyaasa sharciya mawaaqif bay ka leedahay waxa aan sheegayno oo dhan dhammaantood waxay soo gelayaan siyaasa sharciya waa majaalaadka ay siyaasada shareecadu ka waranto dee mid walibana tafsiilkiisa iyo daraasadiisa iyo waa wax iska gaara laakiin dariskan intii aan ka fahmay wuxuun baan uga jeeday inaynu sharaxno shareecada islaamiga in la tabiqi karo xaalad kasta oo lagu jiro inaanay jirin waqti la yidhaahdo dadkaas soo bislaanayo markay meel soo gaadhaanba sharci lagu dabaqa inaanu jirin ee in xaalad kastoo ay joogaan shareecadu ay oofinayso baahiyahooda iyo waxay u baahan yihiin iyaduna ay u traingaraynayso u sii horkacayso xaaladtan ka sii sarraysa oo ay ka sii xoog badanay inay jiraan saasi daraaddeed baa bulshadii muslimiinta hore nebigu soo tarbiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay soo mareen xaalaatu dacfi ay liiteen mar laga xoog badnaa mar ay xoog badnaayeen maray dowlad weyn ahaayeen maray labadii dowladooda waaweyn ee dunidaba la loolamayeen oo dhigmayeen xaalad kala gedisan bay soo mareen bikulli hadihi alxaalaat siyaasa islaamiya baa socotay markii maka la joogayna siyaasa sharciya baa la isticmaalayay markii madiina la joogayna siyaasa sharciya baa la isticmaalayay bikulli hadihi alxaalaat qawaacidatan marka ay sheegayana runtii fiqi tiro badan bay u baahan yihiin laakiin dadka qaar ba xataa qawaacida qalad baa loo fahma dadka bar baa u fahma akhafu dararayn marka la leeyay wixii fidudun inay shareecadu leedahay maya mararka qaarkood baa nadariga sharciga ta adag ay tahay abibakar markii uu dowladnimada qabtay islaamiga ayaa waxaa dhacay maxay riddadii baa yimi abubakar wuxuu yidhi aniga haddii dabar lay diido waan dagaalamaya saxaabadii kale yidhi ma dabar baynu ku dagaalanaa arrinta aayaro saatan maaha wuxuu arkayay diinka buxu inuu ka khatarsan yahay waxanay ka warramayaan oo dhan saasi daraaddeed buu ku qancay haddii dabar loo diido inuu dagaalamayo markuu masaladii u sharxayna saxaabadii waa aqbaleen idan tii adkayd bay u arkayeen markaynu leenahay akhafu dararayn maaha akhafu dararayni fi lcuquul wa akhafu dararayni fi shariica waayo shareecada mawaasiinteedu siday u kala koraysaa ma aha saynu inagu sida caadiga u qiimayno shareecada mawaasiinteeda waxa ugu sarreeya diin
meeshay diintu ku halaagsamayso waxa la yidhi hal jihaado nafta ha u baxdo naf bixis baa waxa laga doortay maxay in diin ay hagaagto idan waxaan uga jeedaa qawaacida aynu sheegayna xataa sharaxooda iyo tafsiirkooda u baahan faham sharciyo fiican sharciyada laga arko على كل موسى ويدين احتاجين أنا ملايين يا هل كان سنكون شوشيري والله أعلم بالله التوفيق القول فيتبعون أحسنه أو حال الناس كتوجد دونا إن شاء الله تعالى محاضرات سدحات وحال تكبرنا صلاة عصر يوم الصشك وترت إن شاء الله تعالى وحال سبيس ونقول دونا محاضرات ما تقدم بيساوي نقول دونا دكتور علي محمد صالح مركا ونصشدي يا صلاة عصر إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته